waxaa ceelaf weyn ka dhacay shirkii kaambeynka ee xusbiga wadani waar haddaanu habar jeclanahay waa tashanaynaa waxa aqalka hoostiisa labada saacadooda habar jeclo kuma mateshaan horta ha u qaadin habar jeclo ma shirin wallahi ma shirin dadkii aan lahaan la kala ilaaliyo way kala ilaaliyeen da xusbi baa shiray niman xusnahay anagu ma aanan ogeyn kuwa halka ka hadlayna cidna mandate kama haystaan wax 3 saacadood iyo 4 saacadood laga hadlaa habar jeclo ma matelaan alay waxaa ceelaf weyn ka dhacay shirkii kaambeynka ee xusbiga wadani waxaana loo ekeysiyay shir habar jeclo waxaanu cod dheer ku beeninaynaa inaanu shir dheer baanu ka dhim arrinkaa la sheegay nabadgelyo aanu socon waxba umaanu socon markaanu halkan nimi dib baanu la kulannay shirkaasoo la gelayaan cidinooga horrayn baanu isgalo waxa la yidhi may geli maysaan duruuftii gaar ahayd degmada ceelifeyn oo qalooc weyn lagu sameeyey khalkhal banaan la geliyey shir habeennimo oo gudcur 12 habeennimo lagu qabtay magaalada ceelifeyn oo soconayay muddo 3 saacadood ah kaasoo khalkhal weyn geliyey wada joogii iyo mushkiladii ka jirtay degmada ceelifeyn kor u sii qaaday ugu horreyn waxaan leenahay shirkaas wuxuu ahaa shir waayeelkii aanu ka filaynay inay waddanka nabadgelyadiisa wax ka qabtaan waayeelkii muddada dheer qaarkood dibadaha ku maqnaayeen ee 4 sano loo sugayay nabadgelyada ceelifeyn wax ka qabtaan ay ku sameeyeen carqaladayn iyo hurin colaadii ay dib soo huriyeen waxaan leenahay shirkaasi ma ahayn mid afkii habar jeclo ku hadlayay ma ahayn shirka habar jeclo ma ahayn shir habar jeclo macquul ma noqon kartaa inay 7 habeennimo iyo 11 habeennimo shirto 4 saacadood ay go'aamo ka soo saarto maya weeyaan caqliga gala maaha qabiil daaye oday habartii baan 4 saacadood ku shiri karay taa waxaan u aragnaa qodobada meesha laga hadlay qodobo iska qoran inay ahaayeen qodobo meelo kale lagu soo qalindaraaleeyay inay ahaayeen qodobo xasaasi ah oo aan leenahay dawladda shisheeye ayaa dhulkooda lagu soo qoray ama dawladda qaranimada Soomaaliya ka soo horjeeda ayaa lagu qanciyay lagu raali gelin baan u aragnaa waxaan leenahay uqaashii dhaqanka ee habar jeclo majority-ga halkan ay joogtaa inta maqanina waa in ra'yigan halka ka sii deerayno nala qabta shacabku aragti ahaan haddii cod laga doonayana sifaa codka laga doonayo qofka cod bixiyaaba wax la weydiistaa nimankaas waxaanay lahayn bay bixiyeen annaga fartayadii waa nagu taala fartayada ma bixin karo shakhsi shacabkana shakhsi ma bixin karo codkooda waxaanu leenahay waxaanay lahayn bay bixiyeen shacabku haddii xeeli ku jirto maxaa habeenkii loo garaacaa maxaa shirka 2 saacadood qabtay habar jeclo loogu matalayaa maxaa meel aan habar jeclo u dhammayn magaca reerka loo jiidjiidaya waxaanu leenahay odayadii halkaa ka hadlay waxaa la yidhi in yar baa oday 100 jiraa malcaamad lagu daray 100 isagoo 100 sano jiray baa malcaamad la keenay alif baa loo bilaabay waxaa lagu yidhi alif dhee alifkii buu kari waayey odaygii 100 jirka ahaa ardaydii qur-aanka dhiganaysa waxay ku yidhaahdeen adeeri misaal jirtaa 100 masaaka alif lagu bilaabay haa allah adeera albaqri kaa fogaa bay yidhaahdeen odayadaa xalay hadlayow allah albaqri idinka fogaa waxaanu u aragnaa odayaal dhaqanka ka saaqiday inaad tihiin annagu waxaa habar jeclo suldaankeeda guud iclaamiyaa baanu qaadanaynaa waxa uu ku taliyaa baanu qaadanaynaa waxa uu ku gebagebeeyaa baanu qaadanaynaa nabadgelyadii horrayn lahaydna waa dambaysiiseen shirkii siyaasadda ee dambayn lahaana waad horraysiiseen sidaasaa masiirkii ummaddana ku lumiseen kii aa idinku lahaydeenna aha uga dhacdeen suldaanka guud ee beelaha habar jeclo ayaa fura xidhana isagiina ma joogo haddana wuu ka aragti duwan yahay nimanka halkaa ka hadlay xalayto anigoo ku hadlaya afkii jiif caaqilka beesha ibraahim sheekh isxaaq ee gobolka sanaag waxaan halkan ka caddaynayaa shirkaasi inaanu ahayn shir loo dhan yahay oo aan la og yahay oo beesha og tahay inaanu ahayn baan halkan ka caddaynaya maanta arrin qabiil ma taagna doorashada lagu jira waa doorasho qaran dadku codkooda iyagaa leh qof waliba fartiisa isagaa leh shir aanu ku ballannay oo aanu haddaan habar jecel nahay aanu isugu nimaadno oo codka aan ku siino beella
maba jirinin iyagaa jeebkooda kala soo baxay fartooda iyaga kuma haysanno wadana walba hay'adda xalay ku dhawaaqeen annana fartayada halkii aan dan moodnaan ku ridaynaa annagoo qarana Somaliland shacab xor ah oo aan cidna fartooda ku xukumin iyo dhaqanba hadday yiraahdeen dhaqan baa u dhamaana kuma dhamayn hadday yiraahdeen shacab baa u dhamaana kuma dhamayn shirkaasina shir dhacay maaha shirka la isugu meenay cirif in lagu balansanaa wuxuu ahaa shirkii nabadgelyada ee dhexda lagaga jiray ee go'aamadeeda la waday ee aanu qaybta ka ahayn ee aanu xidhayaasha ka ahayn ee aanu waayeelka ka ahayn baa ahayd in la isugu yimaado cirif weyn la isuguna soo dhammaado asxaab shacab dawlad oo lagu dhammaystiro iyo waxyaabaha kale ee dadka Soomaaliland gudaheeda gobolka ka jiray in hawlaha la galaahay ma dhicin